يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد waxaan soo wadnay kitaabkii barashada cilmiga dhaxalka. waxaan soo gaarnay xalqadii 17aad. waxaan ka soo hadalnay darsigii ka horeeyey darsigan xajbiga oo aan iri waa baab muhiim ah. waxaanan soo sheegnay xajbiga guud ahaan inuu u qaybsamo 2 qaybood. qaybta hore 2 qaybood. qaybta hore waxaan iri waxaa la yihahdaa xajbun bilwasf, waa qofka oo ku sifooba tilmaamo mucayan ah. waxaan iri waxaan ku soo marnay qaybtii mawaanicda. waxaana weeye qofka waxaa laga helayaa maanic min mawaanic alirs oo aan soo niri waxa weeye wayamnacu shaksa min almiraasi waaxidat min cilalin halaasi riqun وqatl واktilaaف diini fafham falaysa shaku kalyaqiin. marka qofkii haddii 3daa mid ka mida laga helo oo uu ku sifoobo waxa weeye dhaxalkii dhaxli maayo. waxaana la yihahdaa waxa weeye xajbun bilwasf, wujuuduhu kalcadam weeye. haddii uu joogo iyo haddii uusan joogin waa isku mid, dhammaanna wuu galaa dadka warasada dhammaantood. qaybta waa qaybta hore. qaybta labaad waxaan niri waxaa la yihahdaa xajbun bishaks. waxaana weeye baan niri waa in qofkii la helo qof meydka kaga dhow uu joogo oo markaa u diidayaa in uu dhaxalkii qaato. wuxuuna u qaybsamaa 2 qaybood, xajbun binuqsaan iyo xajbun bilkuliya, alxirmaan bilkuliya. xajbun binuqsaan waxaan niri qofkii waan soo marnay shuruudihii uu ku dhexlaayey. qofka ayaa maaragtay ama la weynaya ama waa la helayaa. calى sabiili mihaal haddaan soo qaadano zawjka oo kale, ninka xaaladda hore waxa uu leeyahay nisf baan iri, nisf almaal, maal kale barkii. waa marka aysan qofkii haweenta ahaa ay wax ilmaa aysan ka tegin. marka wuxuu yeelanayaa qaybta hore. qaybta labaad waxa weeye haddii ilmihii la helo zawjkii ama ninkii wuxuu usoo degayaa qaybtii labaad oo waxa uu qaadanayaa rubculmaal, maalka rubciisa ama 4 meelood meel. marka soo degidda uu soo degay waxaa la yihahdaa xajbu nuqsaan. xajbu xirmaan baa noo soo haray. xajbu xirmaan waxaan idhi waa baabka muhiimadiisa oo musanifka u guntay. waxa weeye waa in la helo qofka u diidaya maalkii inuu dhaxlo, gebi ahaanba inuu dhaxal yeesho qofka u diidaya. marka xajbu xirmaankaas waxaan idhi dhammaan wuu galaa warasada oo dhan ilaa 6 qof ma ogiya. 6daa qof waxaan idhi alabawaan wazawjaan alwaladaan baan macnaha waa labada maaragtay haweenka ninkii naagta, ama haweenta iyo maaragtay zawjka iyo ninkeeda, iyo 2da aabbo waa hooyada iyo aabbaha, iyo waxa weeye wiilka meydka u dhalay iyo gabadha meydka u dhalay. 6daasi xajbu xirmaan kuma dhaco. sababtana waxaan idhi meydka si toos ay ula xiriiraan oo waasida ma laha, qof u dhexeeya ayaga iyo meydka ma jiro. waxaa soo haray 6daa markaan ka jarno 25kii qof waxaa soo haray 19 qof. 19kaasi qof 8 waa asxaabu lfuruud weeye oo waxa weye waxaa ku dhacayo xajbu xirmaan. waana musanifka midda uu ka hadli doono 8 qof uu ka hadli doono. 11 kale ee soo hartay waxaa la yihahdaa asxaabulcasabaad weeye. waxaan kusoo marnay iyadana baabka casabada. waa kuwii aan usoo niri waxay isku xijaabayaan waxa la yihahda atarjiix biljiha bidaraja biquwati alqaraaba. marka intaa markaan soo khulaasaynay waxaan rabnaa inaan marka matniga raxbiyaha u noqono oo markaa aan fiirino khaasatan anagoo tarkiizinayna oo xoogga saarayno 8 qof. waayo 13kii waxaan idhi 13kii qof ee asxaabu furuudka ahaa waxaa ka baxay 5 qof markii wiilka laga reebo.
lixda qof oo xajbu xirmaanka uusan gelin markii wiilka laga reebo shanta qof waxa weeye waa asxaab alfuruud waxaana weeye sidaan niri waa ninka iyo haweentiisa aabbaha iyo hooyada iyo gabadha shantan markaan ka jarno 13 qof 8 qof baa noo soo harayso 8daas qof ayaa xajbu xirmaan bilkuliya ku dhacaa oo maalkii dhan loo diidayaa sababtana waxaan niri waxaa la helay qof uga dhow meydka marka ayagii baan maaragtay ku hormaraynaa qaala almusanifu raximah اllahu tacaala waاljaddu maxjubun can اlmiraasi biاlabi fi axwaalihi halaasi watasqud اljadaatu min kuli jiha bilأmi fafhamhu waqisma ashbaha wahakada اlbni biاlbni falaa tabqi can اlxukmi الصaxiixi macdila marka musanifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala waاljaddu awowgii maxjuubun waa mid la xijaabayo bilabi aabbaha ayaa lagu xijaabaya oo awowga waxaa xijaabaya aabbaha ayaa xijaabaya awowgaasna waa awowga xagga aabbaha ah sababta waxaan nidhi awowga xagga hooyo ma dhaxlo marka waa laga xijaabayaa miiraaskii waljaddu awowgii maxjuubun waa mid la xijaabayo bilabi aabihi baa lagu xijaabaya bilabi aabbihi baa lagu xijaabaya can ilmiiraasi miiraaski ama dhaxalkii baa laga xijaabaya fii axwaalihi aabbihii axwaashiisii athalaas ee saddexda ahayd aabbaha waxaan yidhi 3 xaalo ayuu lahaa xaaladda hore waxaan yidhi farad bu wax ku qaadanayaa xaaladda labaadna waxaan yidhi farad iyo maaragtay iyo casab wax ku qaadanayaa xaaladda saddexaadna waxaan yidhi bitacsiib bu wax ku qaadanaya casabeyn xaaladda hore waxaa u daliilaan yidhi qowluhu tacaala waliabawayhi likuli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad hooyadii iyo aabbihii mid kasta waxay leeyihiin 6 meelood maalka markii loo qaybiyo meel ka mid ah waa goorma waa haddii uu meydku ka tegey ilmo uu ka tegey ilmahaasi hadday yihiin rag aabbuhu wuxuu qaadanayaa farad oo sudus oo keliya haddii ay ilmahaas yihiin gabar aabbaha waxa uu qaadanayaa farad iyo waxa soo haray oo ah tacsiib buu isku darsanayaa haddii marka meesha ilmo aysan jirin sida ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu faliummihi sulus haddii meydka uusan ka tegin wax ilmo ah oo ay dhexlayaan labadii dhashay aabbaha iyo hooyada waxa weeye hooyada wixeedii waa la sheegay waxaa la yidhi faliummihi sulus halkaa waxaan ka qaadanaynaa wixii soo haray inuu leeyahay aabbaha marka 3 xaalo oo aabbaha uu leeyahay awowga hadduu aabbo joogo awowga ma dhexlaayo waljaddu awowgii maxjuubun waa mid la xijaabayo can ilmiiraasi dhaxalkii baa laga xijaabayaayo bilabi aabihi baa lagu xijaabayaa fii axwaalihi aabbihii axwaashiisii athalaas ee 3 ahaa 3 xaalo aabbaha uu lahaa waxa weeye awowga wax qaadan maayo halkaa waxa weeye waa asal rag ah oo asal rag ah xijaabay waxa uu leeyahy musanifka watasqudu ljadaatu ayayooyinkiina way dhacayaan oo waa la xijaabayaa min kuli jihatin jiha kasta oy ka yimaadaanba bilummi hooyadii baa lagu xijaabayaa ayada jiha kasta oy ka timaado ha noqoto ayada xagga hooyo ama ha noqoto ayada xagga aabe waxaa lagu xijaabayaa maaragtay waxaa lagu xijaabayaa hooyadaa lagu xijaabayaa ayadaasi marka hadday xagga hooyo ka timaado in lagu xijaabayo ummadii waa iska waadix hooyada ay xijaabayso laakiin hadday xagga aaba ka timaado hooyadayna way xijaabaysaa aabbihii meydka oo ayada wiilkeed ahna uu xijaabayaa markii laga soo reebo madhabka xanaabilada oo ayagu ayada xagga aabe oo ay dhaxal siinayaan wiilkeedii oo joogo ama si kale daa u dhahno meydka aabihii oo jooga laakiin madaahibta kale ee 3 ah waxa weeye ayada xagga aabbo waxaa lagu xijaabayaa aabbaha meydka ama wiilkeeda uu xijaabayaa marka waxa uu leeyahay musanifku watasqudu ljadaatu ayooyinkii way dhacayaan min kuli jiha jiha kasta oy ka yimaadaan ha noqoto jihada hooyo ama jihada aabbo ayay xagga hooyo ha noqoto ama ayay xagga aabe bilummi waxaa lagu xijaabayaa hooyadii baa lagu xijaabayaa meydka hooyadiisaa lagu xijaabayaa fafhamhu faham waqis maa ashbahahu oogana qiyaas qaado wixii arrintaas shabaha oo waxa weeye awowo kasta oo dhow waxa uu xijaabayaa awowo kasta oo fog aye kasta oo dhow waxay xijaabaysaa aye kasta oo fog waana soo qaadanay baabkii jadaadka ayaan ku soo qaadanay halkaa waxa uu musanifku kaga baxay usuul oo xijaabaysa usuul ha noqoto dhanka aabe ama ha noqoto dhanka hooyo aabihina wuxuu xijaabay awowgii hooyadina waxay xijaabtay ayooyinkii bay xijaabtay wahaakadaa sidaas oo kale
ibnu libni wiilka wiilkiisana waxaa lagu xijaabayaa bilibni waa xijaabaya oo lagu xijaabayaa bilibni wiilka ayaa xijaabaya marka wuxuu usoo galay furuucda marka ragga ah wiilka wiilkiisa oo meydku uu yahay maaragtay awowe haddii uu joogo meydka wiilkiisa haddii uu joogo waxa weye wiilkaasaa u diidayo oo waxaan soo niray hadda ka hor haddii ay ka midoobaan jihada iyo darajada waxa weeye waxaa qaadanayo alaqrab darajatan marka haddii la helo ibni oo wiilkii meydka ah iyo ibnulibni iyo wiilka wiilkiis oo meydka awow u yahay wiilkii fogaa waa la xijaabayaa waxaana maaragtay dhaxalkii qaadanayo midkii dhowaa oo ibniga ah falaa tabqi ha dalbin buu leeyahay can xukmi saxiixi xukunka fiyow macdilan meel aada oga leexata ha dalbin oo waxa weeye aabbihii oo joogo awowa xasiinin hooyadii oo joogto ayay xasiinin wiilkii meydka oo joogo wiilka wiilkiisa wa xasiinin wahaakadaa sidaas oo kale ayaa ibnulibni wiilka wiilkiisana yuxjabu loogu xijaabayaa bilibni wiilkii meydka oo loogu xijaabayaa falaa tabqi ha dalbin can ilxukmi saxiixi xukunka fiyow macdilan meel aada oga leexato ha dalbin sidaasa saxa marka musanifka raximah llahu tacaala markii uu ka hadlay alusuul walfuruuc oo raggi ah iyo haweenkii saddexdaas beyt ooga hadlay raggii oo usuul ah iyo ayayooyinkii iyo hooyadii oo maaragtay iyagana maaragtay haween ah oo usuul ah iyo wiilka wiilkiisa iyo wiilka si ay isu xijaabaan ayuu hadda waxa uu soo galay qeybtii la yihahda xawaashida oo ah walaalaha marka wuxuu leeyahay qaala almusanifu raximah llahu tacaala wa tasqudu alikhwatu walaalihii way dhacayaan walaalahaasi ha noqdaano kuwa gabdho ah ama kuwa rag ah bilbaniina wiilashii bay ku dhacayaan wa bilabi ladnaa aabihii dhowaana way ku dhacayaan oo wuxuu halkaa ka ixtiraazayaa aabbaha dhow a aabbaha wuxuu ka ixtiraazayaa awowga marka waxaan idhi waa mas'ala khilaafiye ah way noo imaan doontaa baab la yihahdo baab aljad maca alikhwa ayuu musanifka u gunti doonaa halkaa bay noogu imaan doonaan marka wuxuu leeyahay watasqudu alikhwatu walaalihii way dhacayaan ha noqdaano kuwa ashiqa ah iyo kuwa liabin ah bilbaniina waxay ku dhacayaan wiilashii bay ku dhacayaan wiilashii meydka uu dhalay ayay ku dhacayaan wa bilabi ladnaa aabbihii dhowaana way ku dhacayaan kamaa ruwinaa sida macnaha noola wariyey oo ah dee waad garanaysaan waxaa weeye kalala qofka hadduu mar kalala yahay oo uu ka tegin macnaha asal iyo farac waxaa dhexlaya walaalihii unbaa dhexlaya wain kaana rajulu yuurasu kalaalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidi minhuma sudus fain kaanuu aksara min dalika fahum shurakaa fi thulus marka waxa weeye kalaalada waxa weeye qofkii asal oo maaragtay rag ah ma laha farac uu ka tegayna ma laha waxaa dhexlaya farac ilmihiisina ma jiraan waxaa dhexlaya marka walaaluhu marka waxay dhexlaan asal iyo faracaas markii la waayo marka wuxuu leeyahay watasqudu alikhwatu walaalihii way dhacayaan bilbaniina wiilasha ayay ku dhacayaan wa bilabi ladnaa aabihii dhowaana way ku dhacayaan oo waxa weeye waxaan idhi awowgu waa mas'ala khilaafiye ah kamaa ruwinaa sida noola wariyey wa bilbani lbaniina wiilashooduna way ku dhacayaan waa farcii oo hoos u degay ragga ahaa way ku dhacayaan kayfa kaanuu siday ahaadaanba wuxuu ka wadaa ha noqdaano kuwo fog iyo kuwo dhow mid kanaba ha noqdaano kuwo jamac ah ama ha noqdaano kuwo keligood ah siyaani waxaa isku mid ah fiihi ay fi lisqaadi riidda ay ridayaan maaragtay wiilashooda riidda ay ridayaan walaalaha waxaa ku siman aljamcu walwuxdaanu hadday jamac yihiin iyo hadday keli yihiin waa isku mid oo hadda waxa weeye markuu leeyahay banilbaniina waa jamca waa lafdiga ama shicirka beytka ayaa sidaas jamca moogiye hadduu joogo ibnulibni iyo hadday jamac yihiin intaba waa isku mid marka wuxuu leeyahay wabilbani lbaniina wiilashoodana way ridayaan walaalihii kayfa kaanuu siday ahaadaanba ha fogaadaano ha dhowaadaano jamac ha noqdaano keli ha noqdaano siyaani waxaa ku siman fiihi ay fii hada alxukmi ama fi lisqaadi ridda ay ridayaan walaalaha ay ridayaan aljamcu kuwooda jamac ah iyo kuwooda maaragtay walwuxdaani kuwa keligood ah markii uu ka hadlay musanifku raximah llahu tacaala walaaluhuna ay kulansanayaan kuwa ashiqo ah kuwa liab ah iyo kuwa lium ah
ayaa wuxuu rabaa inuu siiyo axkaamta dheeraadka ay leeyihiin, inuu sheego axkaamta dheeraadka ay leeyihiin walaalaha xagga hooyo. waxa uu yihi marka wayafdulu ibnu lummi bilisqaadi biljaddi fafhamhu cala اxtiyaaطin. marka wuxuu leeyahay wayafdulu ibnu lummi, ibnu lum waa ikhwa liummin, waxay la dheer yihiin oo axkaamtaas aan soo sheegnay walaalaha ay kasii dheer yihiin oo ayagana ay sii wataan. bilisqaadi rid lagu rido, biljaddi awowga lagu rido. marka awowgu wuu ridayaa maaragtay walaalaha xagga hooya wuu ridayaa, laakiin walaalaha ashiqada ah iyo walaalaha liabkaha way isla dhexli doonaan sida noo imaan doonto. marka wuxuu la dheer yahay bilisqaadi rid lagu rido, biljaddi awowga lagu rido. walaalaha xagga hooyana waxay la dheer yihiin walaalaha kale inay ku dhacayaan awowga. fafhamhu faham buu ku leeyahay xukunkaani alaxtiyaadi macnaha si maarata dadaal ah oo uu kaga soocan yahay maarata kuwa kale inaad u ogaato ayaa laga rabaa, si dadaal ah ood ogaato inuusan maaragtay walaalkii xagga hooyo la mid ahayn walaalaha kale ee jadkan uu ku dhacayo. wa bilbanaati gabdhihii asalkaana wuu ku dhacayaa, maaragtay ay ku dhacayaan walaalihii xagga hooyo. gabdhihii meydka ahaana way tuurayaan walaalkii xagga hooyo. wa banaatu libni iyo wiilka gabdhihiisana way tuurayaan, jamcan ha noqdaana kuwa jamca iyo wuxdaanan kuwa keligeed ha noqdaano. waxa kale oo walaalihii xagga hooyo ay ku dhacayaan gabdhaha uu meydka dhalay iyo wiilka gabdhaha uu dhalay, labadaba way ku dhacayaan. marka waxa weeye halkaa waxaan ka qaadanaynaa in walaalaha ashiqada iyo kuwa liabka ah iyo kuwa ikhwada liumka ay kula duwan yihiin. kuwa liumka ah waxaa sii ridaya jadka iyo gabdhaha meydka u dhalay iyo wiilka gabdhihiisa. faqul waxaa tiradaa li aniga waxaa ii tiradaa buu leeyahay zidni ii ziyaadi. halkaa marka waxa weeye walaalaha xagga hooyo waxay ku dhacayaan furuucda gabdhaha ah way ku dhacayaan, laakiin walaalaha kale ee ashiqada ah ama liabka ah furuucda haweenka kuma dhacan. oo waxaan idhi haddii maanta qof dhinto oo uu ka tago gabadhiisa iyo akh shaqiiq ah, gabadhi nisfal maal markay qaadato maal kale barkii, akhi wuxuu qaadanayaa shaqiiqa ah ama liabka ahaa wixii soo haray. laakiin bedelan haddaan meesha dhigno akh liummin, walaal xagga haddaan dhigno maalkii ma qaadanayo. waxaa markaa qaadanayo qof kasta oo maaragtay ugu soo dhow oo raga oo meydka ugu soo dhowaa meesha maalkii qaadan doona. halkaa waxaan kusoo gabagabaynay ayadana xawaashidii oo ah walaalaha uu ka hadlay sida ay isu xijaabayaan. marka khulaaso walaalaha xagga hooyo waxaa xijaaba 6 qof baa xijaabo. waxaa xijaabo aabbaha, waxaa xijaabo awowga, waxaa xijaabo wiilka meydka, waxaa xijaabo gabadha meydka u dhalay, waxaa xijaabo ibnulibni wiilka wiilkiisa iyo bintulibni wiilka gabadhiisa. 6daas qof baa xijaabto. 6daas qof markii la waayo oyna joogin qofka waa kalaala, marka waxaa dhexli doona walaalihiis maaragtay xagga hooyo ah. laakiin walaalaha ashiqada ah iyo walaalaha liabka ah iyo walaalaha liumka hadday isla joogaan meesha waxaan wax qaadanayn waxaa ka jira walaalaha liabka ah, laakiin walaalaha liumka waa asxaabulfuruud. waxaa soo horena waxaa qaadanaya ashiqada, kuwa kalena oo liabka way iska tegayaan. marka musanifku markii uu kasoo gudbay walaalaha ayaa waxa uu bilaabayaa haddana inaan ka hadalno furuucdii maaragtay meydka uu dhalay gabdhaha ahaa fogaaday xoogaa fogaaday oo awowga u yahay, sida macnaha ayagana goormay dhexlayaan, goormaase la xijaabaya. qaala almusanifu raximah اllahu tacaala suma banaatu libni wiilka gabdhihiisa yasqudna way dhacayaan ama waa la xijaabayaa. mataa xaaza albanaatu hulusayni yaa fataa. mataa xaaza albanaatu markay urursadaan ama qaataan albanaatu gabdhihii asalka ah ama sulbiga ahaa ahulusayni hulusayn markay qaataan oy urursadaan hulusaynka dhan ay qaataan, gabdhihii banaatul ibniga ah oo wiilka uu dhalay wiilka gabdhihiisi way dhacayaan oo waa la xijaabayaa. yaa fataa wiilkanow. marka halkan wuxuu nagu sheegayaa gabdhaha la yidhaahdo banaatul ibni ama bintul ibni, ha noqoto mufrada ama ha noqdaana jamaaca. waxa weeye goormaa la xijaabayaa. horta waxaa xijaabayo farac dakara oo asal ah haddii uu joogo, ibniga haddii uu joogo gabdhaha banaatu ibniga wax ma qaadanayaan. marka labaad
waxa weeye haddii mas'aladii gabdho dhan meelay isugu yimaadaan ama isku darajo ha noqdaan ama ha kala hooseeyaano waxay qaadanayaan sulusayn. haddii sulusaynkii ay qaataan gabdhihii banaadka ahaa oo asalka ah hadday sulusaynkii qaataan, gabadhii bintul ibniga ahayd ama banaatul ibniga ahayd way dhacaysaa. sababtana waxaa weeye wax u soo haray ma jiraan. laakiin hadday joogi lahayd binta sulbi keliya hadday joogi lahayd, gabadhaasi waxaan siin lahayn sudusulmaal, waxaan oran lahayn takmilata sulusayn baan oran lahayn. sulusayn bay wada qaadanayaan. maanta maadaama gabdhihii asalka ah ay sulusaynka qaateen, gabadhaasi bintul ibniga ah ama banaatul ibniga ah waa la xijaabaya oo way dhacayaan. waxa uu leeyahay musanifka raximah allahu tacaala suma banaatul ibni, wiilka gabdhihiisa yasqudna, gabdhahaasi way dhacayaan mataa xaaza albanaatu, markii gabdhihii ay urursadaan ama qaataan asalka ahaa ahulusayni, sulusayn markay qaataan. sulusaynna waxaa weeye maalka oo 3 meel loo qeybiyey 2 meel oo ka mid ah. yaa fataa wiilkaanu macnaha waa iska tamaam beyt. marka gabdhaha ayaga markay dhacaan waxaa jiro shardi ay ku dhaxli karaan oo dhaxalka ay qaadan karaan. waa goorma? musanifka ayaa sheegay wuxuu leeyay ilaa idaa casabahunna, inuu gabdhahaasi casabeeyo ma ogiye addakaru mid lab ah oo min waladi libni, wiilka ilmihiis ah. calaa maa dakaruu, sida ay sheegeen culamada asxaabu faradiyiinta sida ay sheegeen, waxa weeye gabadhaasi waxay dhaxalka dib ugu soo noqon doontaa markii la helo walaalkeed oo casabeynaya. walaalkaasna waxaa la yihahdaa alakhu lmubaarak ama waxaa la yihahdaa alqariibu lmubaarak. waxaan loogu bixiyey waxaa la yidhi waa man lowlaahu la saqadat ukhtuhu, haddii asaga uusan joogi lahayn walaashii waxba ma dhaxasheen. marka gabadhaasi aan idhi bintulibni ama jamac aan ka egno banaatulibni aan idhi, goormaa ayay dhaxal ku soo laaban karaan? waa ayagii dhacay. haddii mas'alo noocaasa la helo oo banaatu sulbigii sulusaynka ay qaataan, way dhacayaan baan idhi. laakiin waxaa la yidhi ilaa idaa casabahunna, haddii uu casabay ayagii addakaru mid lab oo min waladi libni, wiilka ilmihiisa ah. waxaa loola jeedaa ibnulibni. ibnigaasi marka 3 buu noqon doonaa. inuu noqdo walaalkeed maadaama ayay tahay bintulibni, asaga uu noqdo ibnulibni wa akhuuha walaalkeed, ama inuu noqdo ibnulibni oo asna la darajo ah oo ah ibnu camihaa, adeerkeed wiilkii u dhalay, iyo inuu noqdo mid saddexaad oo ah ibnulibni oo ayada ka hooseeyo oo hoos u dhacay. kaasna waxa weeye waa ida xtaajad ilayhi, in ixtaajad ilayhi hadday u baahato, markay u baahato waa uu casabeynayaa. marka wiilkaasi markuu casabeynaya 3 shardi baa la rabaa. 1 waa inuu la darajo yahay ama uu ka hooseeyo oo ah aan ku qaydayno banaatul ibniga. marka wuxuu leeyahay ilaa idaa casabahunna, inuu casabay ma ogiye addakaru mid lab oo min waladi libni, wiilka ilmihiisa ah. calaa maa dakaruu siday sheegeen. marka haddii masaladii aan dhahno wuxuu ka tegay meydkii 2 gabdhood bintaani, iyo wuxuu ka tegay bintulibni, iyo wuxuu ka tegay cam. 2dii gabdhood oo banaat sulbiga sulusayn bay qaadanayaan. gabadhii bintulibniga way dhacaysaa. waxaa meeshii baaqiga qaadanayo adeerki oo cam ah. haddii meesha uu joogo ibnulibni, haddii uu joogo oo hoos u dhacay, ama uu joogo walaalkeed ama in adeerkeed, waxa weeye camkii meesha waa la xijaabay, wuu ka baxayaa. ayadii iyo ibnigii ama ha noqdo ibnulibni ayaa maalkii waxay u qaybsanayaan lidakari mithlu xadi lunsayni. marka waxaa la yihahdaa baan idhi alakhu lmubaarak ama alqariib lmubaarak. marka musanifku wuxuu leeyahay wa mithluhunna, waxaa la mid ah gabdhahaasi banaatu sulbiga, waxaa la mid ah oo say wax u tuuraya ama u xijaabaya alakhwaatu, gabdhihii allaatii kuwaasoo yudliina kusoo dhowaanayay bilqurbi, dhowaanshay usoo dhowaadaan meydka, min aljihaati, jihaadka ugu soo dhowaanayay. marka wuxuu ka wadaa waa gabdhihii meydka walaalkiis ahaa ee walaala meydka la ahaa oo ah shaqiiqaad ama ashiqaac. markuu leeyahay wa mithluhunna, waxaa la mid ah gabdhihii banaadka ahaa oo siday wax u xijaabaya alakhwaatu, gabdhihii allaatii kuwaasoo yudliina ugu soo dhowaanayay bilqurbi, dhowaansho ay meydka ugu dhowaanayaan min aljihaati, jihooyinka
oo waxay kusoo dhowaanayaan jihatu lum iyo jihatu leh alab marka waa gabdhihii shaqiiqaadka ahaa oo meydka walaalo kala ah xagga aabbaha iyo xagga hooyaha kuwaana idaa akhadna hadday qaataan fardahunna faradkood hadday qaataan waafiyan oo dhammaystiran hadday ayagana sulusaanka qaataan asqadna akhwaadkaasi way ridayaan awlaada alabi aabbaha ilmihiisa wuxuu noola jeedaa alakhwaatu liabin ama ukhta liabin gabdhihii xagga aabbaha keliya ahaa way tuurayaan albawaaki ay oynayay waxaa la yidhahdaa oohin bay dhexlayaan sababtoo ah haddii gabdhihii akhwaadka shaqiiqaadka ahaa kuwii xagga aabba iyo xagga hooya ay iskala aabba ahaayeen ay meel ka qaateen suluseynkii gabdhaha kale ee soo haray oo ah akhwaat liabin ama ukhta liabin gabdhihii xagga aabba meydka oo keliya aabba kala ahaa waxba qaadan maayaan laakiin walaalkood baa dhinto oohinta bay la mushaarakeynayaan oohinta bay macnaha la oynayaan marka wuxuu leeyahay wa mithluhunna gabdhihii banaadka ah oo sulbigaa say wax u tuurayaan waxaa wax u tuuraya ayagna wax u xijaabaya alakhwaatu gabdhihii allaatii kuwaasoo yudliina ugu soo dhowaanayay bilqurbi dhowaansho min aljihaati jihaadka ay ugu soo dhowaadaan idaa akhadna hadday qaataan gabdhahaasi fardahunna faradkooda waafiyan hadday qaataan asqadna way ridayaan awlaada alabi aabbaha ilmihiisa wuxuu noola jeedaa ukhta liabin way ridayaan albawaakiya oynayay ilaa idaa casabahunna inuu casabeeyo ma ogiye marka wuxuu leeyahay wain yakun akhun haddii la helo walaal lahunna gabdhahaas u sugnaaday xaadiran oo joog haddii la helo casabahunna wuu casabeynayaa baatinan wa daahiran kori hoos uu casabeynayaa haddii marka walaalaha gabdhahaas ayaga ah oo akhwaatu liabin ayagana oo dhacayay haddii la helo walaalkood akhun lahunna haddii meesha uu yimaado akhun liabin haddii uu yimaado akhaas haddii u yimaado casabahunna wuu casabeynayaa gabdhahaasi akhwaadka liabka ah uu casabeynayaa baatinan wa daahiran hoos si hoose iyo si daahira labadaba uu casabeynayaa marka waxa weeye isagana waxaa la yihahdaa alakhu almubaarak ayaa la yihahdaa ama alakh alqariib almubaarak ayaa la yihahdaa isagana sidoo kale gabadhii haddii ay dhici lahayd maaragtay wuu soo celinayaa oo sidaasay macnaha dhaxalkii ku qaadanaysaa intii aan ku kulmayna xalaqa midaan oo kale la mid ah waxaan inkaga tegaynaa fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث